Todd Boehly ayaa maalinimadii shalay si rasmi ah u saxeexay qandaraaska uu kula wareegay gebi ahaanna uu ku iibsaday naadiga faca weyn ee Premier League Ingiriiska ka dhisan ee Chelsea. Heshiiskan oo ah mid aad u ballaaran wuxuu ku kacay qiimo lacageed dhan 4 bilyan oo euro sida ay sheegayaan inta badan warbaahinta ka faalooda arrimaha ciyaaraha. Maalqabeenka reer Mareykan oo iska leh kooxaha La Dodgers iyo Lakers ayaa qarka u saaran inuu dhammaystiro heshiiska uu kula wareegayo kooxda kubadda cagta ee Chelsea sida uu daabacay wargeyska caanka ah ee The Telegraph. Iibsiga ayaa maraya marxaladii ugu dambeysay iyada oo xukuumadda UK ogolaansho siisay si loo dhammaystiro wadahadallada loona soo gabagabeeyo is-afgaradka labada dhinac ay gaareen. Ninkan ayaa kooxda Chelsea wuxuu kala wareegi doonaa milkiilaha haatan gacanta ku haya ee Roman Abramovich, kaasi oo ku qasbanaaday inuu iibiyo kooxda kadib cunaqabatayntii uu kala kulmay xukuumadda UK, waxaana saameyn ku yeeshay dagaalka dowladda Ruushka ay ka wada Ukraine. Kooxda Chelsea ayaa la filayaa in ay ka sii shaqeeyaan shaqaalaha haatan jooga, haddii ay tahay agaasimayaasha iyo weliba xidigaha haatan kooxda jooga oo isbedel badan arrintaasi aysan ku sameynin. Taageerayaasha kooxda Chelsea ayaa aad wadnaha farta ugu haya. Ninkan ma hoos ayuu ula degi doonaa kooxda mise wuxuu ka shaqeyn doonaa horumarkeeda ayay inta badan baraha bulshada aad uga hadalhayaan.